أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انت الضبادات أنه نمهد علينا يا ولالك عبد الرحمن شيخ عمر سيدا وشيغي وي مدة أنه صاحبهن أنه يرير خير أمبانا أن كو صاحبني إلا هدنا أن ماركتي سكوغنا إذن نوى علينا يا وحان إلهي ورتك مرخاتك عيا دادك سيدا سوء بابولي مساجد كايبسدي دستي عروره دي وقتها لقالي إني وحكو برتان كو عباديستان يقونا إني دولة سوماليينا أي مارين لهايين. waxaan nasiib daraa in la yiraahdo Soomaalidu waa ummad ku fashilantay inay ismaamusho. waxaanu isu maamuli weynaa haddaanu anagoo qaxootiya qaaradda Ameerika u buucdeedii aanu ishabayno ismaamulay waanu quruxda yeelanay. waxaanu isla maamuli weynaa Soomaalidu ummad fashilantay maahe oo ismaamuli weyday maahe kuwa hor taagan baa fashilin aan wax maamuli karina. cilada taaltaawi meel walbana waa in laga sheegaa oo aad dhawaaqdaan ragana hor taagan baa faashilina laakiin ummadatan ma aha ummad faashilada. ummad taariikhda intay jidhay soo jidhay wanaag iyo halgan iyo wax soo saar iyo hadii alla ku roon yahay baal dahaba kaga jidha taariikhda adduunka way. taa intaasan kaga baxayaa waxaan u gudbayaa casharkeena maanta Sheekh Cabdiraxmaan yiri hantida maguurtada waa hanti Ilaahay dadka siiyay dad oo dhan ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi aadan markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku yiri dhulkaas baad khaliif ka tahay waa isagiyo durriyadiisii way. sidaa darteed ma jirto baa la yiraahdaa adduunka 1 mitir kibaadaraad oo dhulka kamida oo aan hanti lahayn ma jirto laakiin dadka ayaanan garanayn qaabkii ay hantidaas ula soo bixi lahaayeen. maadada uraniumka qarnigii la soo dhaafay wixii ka horeeyay ciidaasay la mid ahayd wax qiimo ma lahayn sababtoo bani aadanka ayaanan aqoon u lahayn qaabkii uu adeegsan lahaa. laakiin Einstein markii uu soo saaray theory-giisii velocity-ga ayaa maadada iyada lagu helay. maanta shirkadaha adduunyada ugu waaweyn oo multimilliardaires-ka ku shaqeeya hantida inta leeg kulligood waxay adeegsadaan الطاقة النووية. garasha lagu gaaraytaa laakiin intaan la garan ciidaasu kamid ah Soomaaliya sidaa darteed ma jirto 1 mitir kwadaraad oo aan hanti Ilaahiya ku jirin dhulka ma jirto. aayad quraana Ilaahay wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dalulan. Ilaahay dhulka waa kii idin duleeyay aadami baa loo duleeyay. haddaanu fiirino dhulka globe globe-ka isaga waxaa lagu qiyaasaa miisaankiisa inuu yahay inuu yahay 16,000 oo trilyan oo tan 16,000 oo trilyan oo tan baa lagu qiyaasaa. cilmul miqyaas bani aadamku wuxuu ku ogaaday wax uusan practic iyo nadariyo weligiis ku ogaaday. ilaahayna aayad quraan oo isaga kula subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnaahu biqadar. wax walba jaangooyo iyo qadar baanu ku uunay. markaad fiirisid xoolaha cawska cuna ilkahooda iyo dugaaga hilbaha cuna gowsahooda biqadar aayadaasi ku salaysan yihiin. midna hilib bushiidaya gowso ballaaran iyo miciyo waaweyn uu ku soo qabsado iyo u baahan yahay
kuwana cawskaasay riiqayaan gowso ballaaran culays bay ku hayn lahaayeen uma ay baahna inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar qiyaas buu bani aadamka ku ogaaday dhulka tanka uu ku fadhiyo isaga oo goloobkaas intuu ka yahay aynu garan karno dhulkeenna marka Soomaaliya goloobka wuxuu kaga yaalaa qaaradda Afrika barigeeda dawladaha bariga Afrika la isku dhahana annaga bari ka sii ah oo geeska Afrika baanu ku naal geesna waxa la inoo yiri fiiqa geeska ah weeye ummadihii hore xilli waxa jiray la inoo yiqiin geeska alqarn xilligii Greegii hore magaca ay inoo yiqiineen waxa la dhihi jiray deegaankaas alqarn deegaanka geeska dadka adduunyada ugu daada weyn halkaanay ka soo farcameen xataa big bang ay ka shakeeyaan oo la dhaho dhagxan isqa qabsaday oo dhulkii uu ka unmay weeye dhagxantii ugu horeeyo isqabsaday ee ka aasantay ee ugu daada weyn geeska Afrika weeye dhulka isaga ayuu Ilaahay nagu beeray subhanahu wa ta'ala inkastoo dhulalka oo idil ay leeyihiin hodantooyo iyo khayraad dabiiciya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay aadamiga huwa alladhi sakhara lakum ma fil ardi jamii'an wax kasta oo dhulka yaal Ilaahay anagu noogu talagalay subhanahu wa ta'ala haddaba dhulkeenna markaanu eegno geeska Afrika ku yaala geography ahaan barigana badweynta Hindiya ka xigta baddaas weyn weeye cidlada ah waqooyigana badyarada cadmeed badda cas meesha ku dhamaata weeye waxa la dhihi jiray baddaas badyarada berbera laakiin magacyada iyo taariikhda iyo hantida sida hantida la isaga bililqaysto yaa magacyada iyo taariikhdana la isaga bililqaystaa xilli waxa jirtay badweynta Hindiya la dhihi jiray al-Muhit Muqdisho badweyntii Muqdisho magaalada Muqdisho waxay ahayd magaalada ugu camiran ugu ganacsi weyn ugu dhaqdhaqaaq badan waxa magaalo badweynta Hindiya ku yil sidaa darteed baa badweynta Hindiya waxa loo yiqiinay badweyntii Muqdisho Khaliij al-Adanna waxa loo yiqiinay gacankii berbera waayo berbera ka camiray cadan dhulkaas istaraatiijiga waxa uu keenaya camiraanta waxa weeye ahmiyada istaraatiijiga oo dhulka ku fadhiyo ganacsiga Afrika ka yimaado isu soo rogrogayo Koonfur Afrika Namibia iyo China xiriirka dhaqaale ay lahaayeen Soomaaliya ku kala bedelan jireen waa fact kutubta taariikhda ee ganacsiga ay qorayaan sid reer ugu soo dhiibayay waxyaabaha ay Koonfur Afrika iyo Namibia iyo Mozambique ay soo saaraan bay qalabka alaabtoodii waxay soo gaari jireen xeebahaas waqooyiga Soomaaliya doonyaha ka yimaada Faristina xeebahaas ka qaadan jireen dhulka isaga ah taariikhda mucaasirka marka la sheego waxa la yiraahdaa dagaalkii labaad wixii ka dambeeyay modern history hadaad maqashaan waa dagaalkii labaad wixii ka dambeeyay waayo goloobka wajiga uu leeyahay maanta waa resultigii dagaalkii labaad ee natiijadii qaabkii dadka ay dhulka u qaybsadeen waxa qaybiyayna dawladaha awoodda lahaa way annagu meel wax lagu qaybsanayna ma fadhin awood iyo talo aan leenahayna cidna weydiinaysay ma jirin intaas la inoo gartay dawladihii xoog lahaa intaas ay u gartay laakiin dadka Soomaalida dhulkooda inta waa u ka ballaaraa waaga wax la qaybinayay dadka Soomaalida waa dareensanayeen oo waa ogaayeen dad cawaana oo warmoog ma ahayn way ogaayeen laakiin tabarba dhigtay halkaas ninkii ka gabiyay wuxuu yiri xilligaas dhulka la xuduudeynayay Talyan iyo Amhariya Ingiriis bay akeekiday arlada la kala boobaya kanu itaal roone waa duni la kala iibsado nala ogeysiine waa duni ninkaad aaminta ku ajalaya
xuduudda Faransa iyo u dhaxaysa Itoobiya markii la sameeyay yaa waxaa dhacday sheeko nin reer miyo geel la socdo Soomaaliya oo reer Jabuuti qabaa'ilka Ciisaha ba xuduudii soo gudbay waa la qabtay khalad buu sameeyay laakiin khaladka uu sameeyay khaladu isaga garanaya ma ahayn maxkamad baa la saaray waa maxay hoono meeshaan maxay tahay bal meeshaan maxkamad weey oo maxkamadda maxaa lagu sameeyaa hadaa lagu xukumayaa dambi baa gashay abaar buu aamusay saddex bilood oo ganaaxa lagu xukumay in la xiro markii la yiri waa lagu xirayaa 3 bilood meel baa lagu geynayaa hoono geela iga kala fakanaya mid kale u yeerto yiri 3 bilood idin fadhiya marka xuduudahaas markii la sameeyay dadka Soomaaliya la yiraahdo waa dadka af Soomaaliga ku hadla laakiin xuduudda siyaasadeed ee Soomaaliya waa xuduudaas weey laba mustalax oo aan shaqo isku lahayn weey xuduudda iyada ah dhulkeeda masaaxada uu ku fadhiyo markaanu fiirino waxa weeye 367,657 kilomitir kwadrat oo ku celinaya 367,657 kilomitir kwadrat dhulka isaga ah laba dhul engegan ma wada aha waxa ku jira meelo biyo ay maraan meelaha iyaga waa webiga Jubba iyo webiga Shabeelle dhulka ay labadaas biyood maraan meel biyo fadhiyaan meel la deey kara ma oo yaabiso engegan meelaha aan engegnayn oo labada webi ay maraan waxa weeye 10,320 kilomitir kwadrat 10,320 kilomitir bay biyaha noo maraan dhulka engegan oo saafiga oo noo soo haraya waxa weeye markaas totalka wuxuu ahaa 627,337 kan damba saxa totalki 627,337 dhulka yaabiska ana oo sida rasmiga loo deey karo 367,657 saddex dal baan xuduud la leenahay dhanka bariga saddexda bariga inaga jiraan Jabuuti waqooyi galbeed weeye xuduudeeda 57 kilomitir oo xuduuda Kenyana koonfur weeye 687 kilomitir oo xuduuda Etoobiyana dhexda oo bariga ah xuduuda inoo dhaxaysa 1,600 oo kilomitir oo xuduuda weeye 1,600 oo kilomitir oo xuduuda dhulka isaga ah ayaa Ilaahay nagu beeray dadka Soomaalida ayna ku tarmeen ma dhici karto yaanyo in halkan intaad ku beertid ay ku dhasho sababtoo cimiladeedii ma sidaas baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xoolihii iyo dhirtii iyo cimiladii iyo waa isleeyihiin waa iswataan dadka Soomaalida wax soo saarkooda shaqadooda tarankooda fikirkooda intuba wuxuu ku fiican yahay cimiladaas Ilaahay uu ku abuuray oo ugu talagalay cimilada iyada markaanu eegno Soomaaliya xagga cimilada markaanu ka eegno Soomaaliya waxa mara dhul baraha waa ka khadi dhul barihi واتاسا خضر البراها كونفورتا سومالي ومرا ميل كسمايو جرتا 15 كيلومتر بانو ملاين بومرا وخدا ادونكا كلا بدا وقوي كونفور كلا بدا تا معنى هذا waxa weeye meel
aad iyo aad u wanaagsan baan adduunka kaga naal waa ka fursad fiicannahay ka nasiib badannahay ninka cirifkaa ku nool halkaa iyada ah waqooyiga Scandinavia ya ama waqooyiga Ruushka dadka ku nool ama koonfur Afrika iyo Australia waa qudbiyadii dadka ku nool aad baan uga nasiib badannahay manaha waxaanu karti ku haleeyay nicmad Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku manaystay nagu manaystay weeye sanadka 12 bilood December ilaa February waxaa nalka noo shida December ilaa February waxaa dhaca dabaylaha waqooyi bari u socda oo monsoonka waqooyi bari macnaha galbeed bay ka imaanayaan dabaysha saasay noo maraysaa waqooyi bay u socotaa barina waa aadaysaa saas u socotaa halkaasay maraysaa taa iyada waxay keenaysaa waa dabaylo adduunka dhan saa u maraya badan xeebteena ah ee badweynta India way guuraysaa biyaha waa soconaya biyaha socda monsoon baa loo yaqaanaa monsoon ereyga wuxuu ka yimid af Carabi mawsim buu ahaa mawsim maayo May iyo October inta u dhaxaysana waxay u soconayaan koonfur galbeed koonfur bay ka imaanayaan galbeed bay u soconayaan saasay u guurayaan dabaylaha socodkooda waxaa raaca marka doonyo badana carabta isticmaali jiray sirbu u ahaa dabaylaha socdo doonyaha shiraac inta loo sameeyo iska kaakaxaynaya ilaa iyo koonfur Afrika ku tagayso ku soo noqonayso carabtu sirbu u ahaa waxyaabaha la kala qarsado buu ahaa Greegiiba waa dambe ogaaday oo aad ugu soo qamaamay dhulkeenni adiga taariikhdaanu taas kaga warami doonaa Soomaaliduna way yiqiineen dabaylahan aad bay ugu safri jireen si xoog leh bay isticmaali jireen socdaalka isaga laakiin nasiib darro waxa weeye dib u dhac xoog badan baa ku yimid noloshii dadka Soomaalida ahaa xataa waxaa jiray islaan la dhaho Aisha al-Malaaha buugaag taariikh baan ku arkay Aishadii malaaxada ahayd doon dhan bay maaragtay waayeelka ahayd ninkeeda dhintay marka hawshii si ayaan uga dayacmin iyada doontii furshay iyada marka kaabe doonka ahayd ganacsigaasay wax ka waday taqriiban hadda hal doon ma jidaan filaya Soomaali leedahay oo badda ku mushaaxa labada monsoon xilliga u dhaxeeya waxaa jira roobab aanan si rasmiya si schedule aanan u diin mar badan mar yar mar aanan imanayn xilliga roobabkaasna ay da'ayaan waxa weeye dayrta iyo xagaaga roobabka Soomaaliya ku daa waa la cabirayay tan iyo qarniga bilowgiisii celcelis Soomaaliya waxa ku daa 500 oo millimeter oo biyo ah meesha ugu roob yar degmada ugu roob yar waa magaalada Boosaaso degmada ugu roobka badan waa Kismaayo iyo Hargeysa labada degma ugu roob badan markaanu topographical fiirino dhulka Soomaalida kor markii laga soo kaco khadaas kore xeebtaas min Gardafuy ilaa maxay ahayd Gabiley bay ahayd magaalada geeska Zeylac mid baa xuduudda ka xigta laakiin low yacad Zeylac ilaa low yacad xeebta dheer dhulka markaad u degatid guban baa lahaa guban ilaa 10 kilomitir oo gudaha weey waa dhul falaada intaan buuraha la gaarin Zeylac hadaa ka baxdid Boosaaso hadaa ka baxdid Laasqore hadaa ka baxdid Berbera hadaa ka baxdid dhul baad maraysaa kadib buuraad u tagaysaa buuraha iyaga waxa la yiraahdaa Goolis waa buuraha taxan min Gardafuy bay ka soo bilaabanayaan geeskaas ilaa Itoobiya gelayaan buuraha iyaga markaad dusha u fuushid
oogo oogaa la dhahaa dhulkaa buuraha uu ku fadhiyo o dhan oogo macnaha waa wax dusha ah ooga markaad ka degatid dhul falaadaad u imaanaysaa waxaa la yidhaahdaa dhanka galbeedkana hawd dhanka bariga ana nugaal gobol baan u naqaan laakiin topographically waa ka weyn yahay gobolka ilaa iyo ceel afweyn nugaal baa la isku dhahaa hay-adaha dal ka shaqeeyana topografiyadaasi ku shaqeeyaan walow annagu aanu xuduud kala leenaho laanlaan aanu maaragtay annagii baa isu muuqan laakiin hay-adaha barnaamijkooda ama caafimaad ama biyogelin ama khayriga ay wadaan waxa weeye qaab topografiya bay u shaqeeyaan hawdna dhanka galbeedka weeye nugaalna dhanka bariga guban marka laga dego markii laga tago hawd iyo nugaal waxaa la tegayaa dhulka loo yaqaan ciid iyo caduun ciidna waa dhanka galbeedka caduunna waa dhanka bariga ilaa laga gaaro webiga shabeelle dhulka webiyadu ay maraan baa markaas bilaabanaya taa Soomaaliya geeska Afrika ay ku taallaa waxaa aad muhiim u ah inaanu faham ka qaadano qofkii aanan fahamsanayn sababtu maxay tahay maraakiib badan ay u soo maraan geeska Afrika halka waxa weeye badweyntii Atlantic ahayd halkaana waxa weeye badweyntii India Atlantic Ocean waa taas oo ma jeedaan ya Indian Ocean waa taa ninka Europe jooga waxa uu sahlan si Asia u gaaro inuu baddan Mediterranean ka soo maro Canal Suez ka soo gudbo Red Sea ka soo gudbo jaa marka Indian Ocean buu ku jira haddii kale jiro dheer bay ku noqonaysaa halkaas soo maraya qaaradu aad bay u weyn tahay Soomaaliya goboladeedina waa kan magaalada u koreysa dhanka waqooyiga u xigta Soomaaliya waa magaalada Caluula halkaas ku taala magaalada koonfur xigtana waa Ras Kamboni galbeed magaalada u xigta waa beled Ceelwa wata bari magaalada u xigta waa Xaafuun qaaradda Afrika oo dhan bay bari u xigtaa okay inta markaan ka gudubno dadka ku nool Soomaaliya tirakoob rasmi ah ilaa hadda laguma sameyn dadka Soomaalida tirakoobyo la sameeyay waa jiraan xilliga isticmaalka tirakoob baa la sameeyay dhowr jeer xilliga aan dawladda ahayna dhowr jeer baa tirakoob la sameeyay kii u fiicnaa wuxuu ahaa 74 kii ardaydii ololaha aaday ardaydii iskuulaadka intermediate secondary-ga kulli baadiye loo diray inay reer miyiga baraan af Soomaaliga sida wax loo qoro waxna loo dhigo wallaha markuu dhamaadayna tirakoob baa le dadka soo tiriyaa la yiri ceelashaan istaagi jiray buug iyo qalin baan qaadanaynaa muddo 7 beri xoolaha 7 beri bay ugu yaraan qadaan biyaha shida badan baan kala kulanno Soomaalidu ma jecla xoolahooda in la tiriyo dad isla weyn weeyo waligood ma yaarag xoolo dhibka naga qabsaday askar baa nala socotay xataa dadka lama dili jirin waaga hubna lama haysan hadii hub la haysan lahaa dad badan baa dhiman lahaa mashruuca ma socdo tiradii ugu dambeysay marka qiyaasaad bay iska wada ahayd inkastoo dad badan la soo tiriyay waaga misana Soomaalidu waa guurguurayeen xuduudahan dhisan xuduudu ma aha iyagu geeli gaalkacyo ka daaqayay saa dambe wardheer ceel ku yaal buu ka cabayaa oo sii socdaa jigjigu gaaraya geeli bay dhaba ka cabayay gaarisa isagoo socda arkay kii gaarisa isagoo Kismaayo baadiyaheeda daaqaya arkaysa waa dad soo socda marka dad meel degan baa la tirin karaa laakiin dad guurguuraya tiradii waaga la helay taqriiban 800 baa lagu daray oo la yiri waa dadkaas maaragtay socdo aan la tirin karin 1995 intii dawladdu ay burburtay tirakoob baa la sameeyay aduhu sameeyeen
kuwii dambe ma arag runtii weli tirakoobkaa la sameeyey waxaa lagu qiyaasay 9 milyan oo qof inay Soomaalidu yihiin wax yar ka badan wax yar ka yar macnaha qiyaas inta leeg waxaa kaloo lagu qiyaasay dadka Soomaalida ah inay ka kooban yihiin qoysaskooda isku celcelis aabe iyo hooyo iyo 7 ciyaal badanaa qiyaastii waa inta in ka badan waa jiraan in ka yar waa jiraan laakiin markii la isu celceliyo waa aabe iyo hooyo iyo 7 ciyaal reer xalayaan u tagay gabar dalkii ka timaa waxay dhahaysay waan yaabay reerkaan la hadlaba 7 ciyaal marka ayada warkeedii sax weey okay 9 milyan markaan 7 u qaybino meeqay noqonaya maya 9 milyan caruurta 7 aabe iyo hooyo ku dar waa 9 qof aabe iyo hooyo iyo 7 ciyaal waa 9 Soma 9 milyan u qaybi marka meeqay noqonaya may 1 milyan 1 milyan oo qoys weey Soomaalidan saysato dhan waa 1 milyan oo aabe 1 milyan oo hooyo iyo 7 milyan oo caruur sidaas markii loo qaybiyo dhulkii baa la yiraahdo loo qaybiyo waxaa jira wax la yiraahdo population density al-kathafa sukaniya umadaha wax fahmay nolosha fahmay oo doonaya inay qorshe sameystaan annagu gurigii qorshaan u sameeyna aabihii iyo hooyadii qorshe qoys bay sameysteen guri walba qorshu leeyahay laakiin gurigii weynaa inaanu qorshe u sameeyno wali waa ku guuleysan laana umaduhu marka guryahooda qorshe u sameystaan in dadka ay tiro koobaan qorshuhu ka mid yahay in caruurta la tiro koobo qorshuhu ka mid yahay kuwa dhalan doona xataa qorshuhu ka mid yahay markii Soomaalida dhulka loo qaybiyo density population density dadkii iyo dhulkii baad isu qiyaasaysa waxay noqdeen kilomitir walba kibaadaraada waa xisaabtan waa 95 hadda inay ka badan tahay laga yaaba 11 qof oo Soomaaliya baa deegaan ahaan u helay kilomitir walba si marka aan u fahanno ma badan yihiin ma se waa yar yihiin dhowr dal baan idin soo qaaday wadanka Sweden la yiraahdo kilomitir kwadaraad 53 qof baa ku aadaya 53 qof 12 baan anagu ahay wadanka la dhaho Mozambique 73 qof baa kilomitirkii ku aaday dalka la dhaho Nicaragua 100 waxa ku aadaya 115 qof kilomitir kwadaraadkii 115 qof nagu 12 baan dalka la yiraahdo Masar 202 qof baa kilomitir kwadaraadkii ku aadaya wali waa sii socdaa dalka la dhaho Tunis 345 qof baa kilomitir kwadaraad ku aaday North Korea 516 qof yaa kilomitir kwadaraad ku aaday Japan 873 qof yaa kilomitir kwadaraad ku aaday Moldova 2685 qof baa kilomitir kwadaraad ku aaday Monaco 48,050 qof baa kilomitir kwadaraad ku aaday ayad waxaa jira quraana oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله قوم كأيجا آيات النوم الشيء إن إله كفريان وحادعي كرتة إن إله من سنايين صوما ما دام أنا اللي نوشيء لكن محي كفريان نعمد إلهي سيئي بي كفريان
soomaalida soo qoomkaasoo kale noqon maya bal dadka 48,000 haddii dhulka sidoodoo kale aanu ku ahaan lahayn maxaa dhici lahaa hooyo iyo aabba isdooxi lahaa iska dhafax kale annagoo hadda dhulkii cidla yahay baan tuulo intaan isugu imaano eber iska dhigayn dhulkii hadda waa cidla 48,000 iyo over weeye dalka Monaco tirakoobka haddaad rabtaan waddan kasta internetkaad ka helaysaan population density haddaa google ku qortaan waa uu idiin soo qoraya dalka Bangladesh lahaan mar walba midaal u soo qaato aan jeclahay inaan xuso sababtoo waan tegay nin korneel ah oo aan la kulmay meelna la ku casumay wuxuu ka mid ahaa raggii Soomaaliya joogay 29 iyo 93 markii United Nations ciidamadooda dawlado badan ka yimaadeen oo Soomaaliya ay joogeen ninka isaga wuxuu yiri waxaan la yaabay waxa aad isu leeynaysaa haddaad kala tagtaan buu yiri meesha aad ku diriraysaan ku kala taga bas isba arkimaysaan wadankiisa hadda مثلا gobolka la dhaho Puntland waa gaalkacyo ilaa Boosaaso Soomaa Bangladesh iyo Puntland baa weyn ha weynaatee wax laba jeer ku dhow laba jibaar wax ku dhow bay weynta meeqa ku nool marka Bangladesh 165 milyan oo qof baa ku nool oo taqriiban garowe ilaa Boosaaso 165 milyan oo qof Puntland hadda nabad ma qori baa la soo wada haystaa dhulka cidlada oo iska banaan macnaha nabad nisbiya weeye laakiin yani anytime Soomaalidu waa isku wada qaab waa isku wada maaragtay cimilo Sheekh Umar Faaruq baa wuxuu yiri waxaan isleeyahay wayaga dhahay Arab baan ka soo farcanay armay Abu Jahl ka soo farcamay buu yiri ila Arab waa isaga xataa wax maskaxdooda gelaya ma jiro yani ficilka guracan bay mar walba u iilanaya ya mar walba iyagoo og inay tahay tan tii xaq ahayd tii sax ahayd tii wanaagsan tay ku guuleysanayeen iyagoo og inay tan tahay bay tan dooranayaan ninbaa wuxuu yiri Abu Jahl ag fadhiyay Nabi Maxamed baa soo maray calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu yiri beenaalihi fiiri buu yiri Abu Jahl buu ku leeyahay beenaalihi fiiri Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu beenlow yahay dicaayada iyada Abu Jahl baa suuq galiyo faafiyay isagii buu marka u sheegaya Abu Jahl ninkii buu ku yiri wallahi labadiina adaa beenlow wuu og yahay rasuul xaqa inuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin madax adeeg buu u diiday ninkii isaga ahaa uu soo muslima cara oo ka carooday hadalkii Abu Jahl wala soo muslim khayr bay u noqotay okay population density markaanu ka baxno oo aanu ka fahanno qiimaha dhulka iyagu leeyahay iyo hantida Ilaahay nagu manaystay oo inaan ku fara adeegno ay waajib nagu tahay waxaan u gudbaynaa gadaal balaanu noqono positionka uu ku yaal dhulkeena kaliya baahantiya waxaanu ka hadlaynaa hantida dhulka leeyahay Sooma dhul ahaan waanu soo aragnay huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan ilaahi dhulkii waa inoo duleey dhulka inoo duleey waa dhulka sida u ballaaran ee cidlada ah ee aanu niri kilometer kwadraadkii dadka tirada yar baa ku aaday haddaanu niri 1 milyan oo qoys weeye 11 qofna 9 qof iyo 11 farqi weyn uma dhaxeeyo
تقريبا مركا كيلومتر كستا هالقويس أبي هوي يتدبع عيال iyo laba nin saddex nin oo adeeru u yahay odaga baa ku noolaan kara intaas waa hanti waanu isla qirray waxa iyana laba ah oo hanti kala ah dhulka layna siiyay inuu ku yaalo position adduunkii bartamihiisii adduunka bartankiisii inuu ku yaalo hadda dukaanka ku yaal magaalada Minneapolis bartamaheeda iyo dukaanka cirifkeeda ku yaal keebuu dhaqdhaqaaqa nolosha ku badan yahay kan bartamaha ku yaal waanu wada qirayna Australia waa taa halkaan ay ka muuqataa waa taa geeska muuqda way Soma New Zealandna markaan soo socdaan ku soo hakaday jasiiradaas way halka ku taal Iceland baan dhihiraa New Zealand ma Iceland markay rabto Australia inay aado waxay ku khasban tahay inay ku soo marto waxa tahay dukaankii centerka magaalada ku yilay cidii xagga ka imaanaysa ku soo maraysa cidii xagga ka imaanaysa ku soo maraysa bal dawlad waxa jidha markay xilliyada qaar barigeeda wax qalaba ay ka daldalayso ama raashin ama ay u daldalayso galbeedkeeda markay ka daldalayso barigeeda u daldalayso inay badeena soo marto ay ku khasbanta waa dawladda Ruushka waa kaas halkaas ay degan yihiin dhulka weyn oo waqooyiga ku yaala way marka xilliga qaboobaha oo baraf da'o tariinadii wax walba lagu ma qaadi karo waxay ku khasban yihiin dhankan galbeedka xoogii warshadihii iyo degaankii ay u badan yihiin halka cidla way Siberia way laakiin magaalooyin kala foofo baa ku yaal badda madoobay ka soo shixnaan maraakiibta kanaalkaas ay ka soo gudbaan Mediterranean-ka soo maraan kanaalkaas ay ka soo gudbaan xagee ka soo jirooda ilaan markabkii wax badan buu u qaadaya tariin wuxuu soo qaadin buu markabkii u qaadaya galbeedkii bay wax ka rarayaan waxay ku khasban yihiin say barigii Ruusiya u geeyaan inay adiga ku soo maraan halka waxaan ka fahmaynaa meesha uu ku yaal dhulkeena inay tahay hanti qiimi badan wax Ilaahay looga mahad celiyaa maxaa nimankan burcadbadeed ay maraakiibta oo afduubayaan fursadda xagee bay ka helayaan waxa fursadda siinaya waxa weeye maraakiibta faraha badan oo maraya meesha taqriiban maalintii dhowr iyo 20 markab baa mara bishii dhowr boqol bay noqonayaan sanadkii dhowr kun bay noqonayaan haddii dadka Soomaalida aqliga u soo noqdo Ilaahay aqliga wuxuu noo siiyay inaynu ka faa'iideysano walaqad karramna bani aadam karaamada Ilaahay uu aadamigu saaray oo manifestation bayaan ayadan quraan oo Ilaahay noogu sheegay karaamadaas iyada waxa weeye aqliga oo aan kaga duwanahay xoolaha haddaanu marka aqliga guriga ku hagaagsano xeebahaas waqooyi berbera iyo laasqore iyo boosaaso iyo haddii aanu dekada caalamiya ka dhisi lahayn wax kale aynaan qaban maraakiibta kumanyaalka ah adeeg aanu fidin lahayn dhaqaale kale Soomaaliya uma baahnaateen waxay noqon lahaayeen waxa la dhihi karaa dadka adduunka ugu taajirsan adduunka dadka u taajirsan waayo kharash badanna waa ka soo gali lahaa dad badanna meeshii kuma noola dadkii waa yar yihiin dib haddaan ugu noqdo ninka Bangladesh-ka wuxuu yiri haddii qoys kasto Soomaaliya qoysku waa aabe iyo hooyo iyo caruur qoys kasto Soomaaliya u 10 qoys oo Bangladesh wato ka haysto oo Soomaaliya la tago idinka iska seexda qaar beeraha ku falaan qaar xoolaha ku raacaan qaar kalluun ha kaaga shaqeeyaan wuxuu yiri waxaad ku noolaan lahaydeen idin dhihimaayo sida dawladaha khaliijka looga nool yahay amiirada khaliijka guryahooda sida looga nool yahay u noolaan lahaydeen qoys 10 qoys u shaqeynayaan dhulkiina uu hodan yahay
هذا موسى إنه لانين سيدا أمير فلان يا أمير فلان حقيقة إن هذا الوحو أها ميلوين إيقاتها بتي نينكا هذا الكيسي عالم كمركا إنا أنه ميل لحكا غنال يدنا وهنتي اللباد وإلهي سبحانه وتعالى ومدى الصوماليات وكما نيستي ومهد علين تيدي لو باهنية سدح هنتي ذا سدحاد وعن حسينا وحيه بيه وحبا با إذاعadaha ka maqasheen qarnigan hadda bilowday dagaalada dhici doona waxa weeye dagaalo ay biyo sababayaan biyo hadii shalay xuduud lagu diriri jiray dadkii waa aqliyeysteen war maxaan isu leynaynaa adna noolow anna aan noolaado dadkii dagaalkii labaad isku baaba'ay oo 100 milyan oo qof iska dilay yaa maanta u nabdo sababta noloshii bay fahmeen dagaal farahay ka guubteen dagaalku marka iyo khilaafka siyaasadeed wuxuu noqonayaa wax biyo ay sababaan haddana ay fafaalaheedii waa muuqdaa dadka Soomaalida marka ilaahay wuxuu ku manaystay dhul biyo miirana biyuhu kow xeebta dheer ee badda ah weeye taqriiban dhererkeeda xeebteena dhererkeeda waxa weeye 3,520 kilomitir oo dherer 3,000 oo xeeba ummada dhan baa waxay laayihiin 1 kilomitir oo xeeba 1 kilomitir oo xeeba bay laayihiin annana 3,000 qabaa'il kan islaynaya qabiil aanan xeeb lug ku lahayn ma jiro waliba xeeb hodana way waan u tagi doonaa kalluunka 3,025 kilomitir oo xeeba badweynta India iyo badda cas oo waliba meel istiraatiiji ah adduunka bartamaha kaga taab dawladda xeeba dhaadheer leh waanan ka faa'iidi karin baa jira ruushka kamida bal xeebta waqooyiga ku taal aad bay u dheertahay laakiin waa baraf yuu kala xiriira markabkii halka ka soo baxa 10 sano kadib uu imanaya meesha wax nafaca male sidaa darteed buu wuxuu ku khasban yahay Ukraine inuu la saaxiibo ay u fuutiso badda madow inuu maaragtay xeebta halkaas soo galo waxayba wax dekada wuxuu leeyahay Petersburg oo badda Baltic halka ku yaal iyo Atlantic oo de adduunka cirifkiisii meeshii bari u xigtay anana xeebtaas iska qaawan ee bartamihii adduunka ku taal baa Ilaahay nagu manaystay taa waa biyaha koowaad biyaha labaad waa labada webiga Jubba iyo Shabeelle webiga Jubba dhererkiisa wuxuu yahay 875 kilomitir 875 kilomitir oo biyo ah Shabeellena waxa weeye 1,130 kilomitir 1 kilomitir waayo Shabeelle toos badda uguma shubo afgooy agteedu ka leexda xeebtu mara saasuu u socdaa ilaa uu Jubba kaga darsoomo goob weyn meesha Allah haddii la isku daro 2,000 oo kilomitir bay noqonayaan oo webiya 2,000 oo kilomitir oo webiya wallaahi waxaan ku dhaaranayaa Soomaali maahe dawladaha geeska Afrika nugula jiro nugula noolo dhan labada webi oo laga shaqeeyaa ku filan labada webi kaliya yaa ku filan biyahaas kamaanu faa'iideysano say u socdaan badday ku shubmaan adduunkiina biyo lagu diriraya oo heer la dagaalamo baa la gaaraya annana horteena biyaha sida ugu qulqulaya 24 saac waa nicmad kale waxa kale iyadana biyo ah ilaahay subhanahu wa ta'ala guddoonkiisa ku dhacday in biyuhu ay u dhacaan qaab isweydaara qoraxdii baa kuleynaysa waa karkarayaan daruur bay noqonayaan waa soo daayaan
haddana qoraxdii baa kulaynaysa waa karkarayaan qaac bay noqonayaan daruur bay noqonayaan waa soo da-ayaan saasay biyuhu u wareegtaan akhraja minhaa maa'ahaa wa marcaaha minhaa damiirku wuxuu ku noqonayaa dhulkan biyihiisii ka soo saaray uu ilaahay leeyahay ayadda waa ayad scientifica biyuhu dhulkay ka yimaadaan meel kale kama yimaadaan haddaa la ogaado biyahaas marka saa u wareegaya intooda badda ku daa waaba ku dayan weliba 4 meel markii loo dhigo roobka adduunka ka daa 3 meel baddu ku daa badda biyo ma u baahan tahay haa waa u baahan tahay abaar baa ka dhacda sida dhulka u abaaraysto iyo u abaaraysataa markii ay biyuhu qaac noqdaan oo koraadaan biyihii baxayay waa oxygenkii iyo hydrogenkii biyo saafiya wey waxaa ku badanaya baraagtii cusbadii abaarta ku dhacda badda waxa weeye cusbadaas ziyaadaysa kalluunkii waa dhimanaya si marka muctadil looga dhigo biyo xareeda baa u soo da-a markaasuu kalluunkii dib u noolaada maadaama dhulka iyo biyaha dhulka engegan iyo dhulka biyaha ah ay yihiin 1/3 afar markii loo qaybiyo goloobka hal meel waa dhul engegan oo dad iyo xayawaan iyo dhir ku kor nool yihiin 3 meelna waa biyo roobka da-ana sidaas weey hal meel dhulku ku daa 3 meelna biyaha ku daa laakiin meelna wuu ku badan yahay meelna waa ku yar yahay waa qadar ilaahay wa anzalna min as-samaa'i maa'an biqadar buu ilaahay raaciyay kow biyahaas markay dhulka ku da'aan biyaha badanaa waxay u dareeraan meesha godan dhulka meesha u godanna waa meelaha badahu ku yaalay biyihii ku da'a qaaradda Afrika gaar ahaan barigeeda waxay u soo dareeraan waxna dhanka bari waxna dhanka galbeed bay u daan buuraha Itoobiya mesela biyaha ku daa kuwa galbeed u dareero webiga Niil bay ku shumaan kuwa bari u daana qaarna labadan webi bay ku soo shumaan dhanka waqooyiga ana ilo xeebaha ku wada daadanaya bay ku shumaan labada magaalo xaafuun iyo bayla oo aan sanadkii hore tagay ila iska socdaad arkaysa xareed yani waa fajacaysa sanadka dhan waa daayaan sanadka dhan waa daayaan magaalada meel 5 kilomitir u jirtana abaar baa xoolaha iyo dadkii u dhimanaya 5 kilomitir waa la dhimanaya xilliga abaarta ama la qaxaya la guuraya waa badan yihiin marka ilaha caynkaas oo waayo biyihii buuraha dhexdooda ay soo jeexayaan qarar ka dhexdooda waxay raadsanayaan meeshii godka ah meesha godka ana waa badda meesha ugu dambaysa Kenya biyaha ku daana qaar badan oo kamid ah dhankaas jubooyinka bay ku soo shubmaan laagag fara badan oo waxaad arkaysaa xeebahaas badda kaga shuba biyihii xareedda ah iyadana waa biyaha haddii la cishado wax weyn bay nolosha dadka ka bedeli lahayd intaa waxaa weheliya biyaha dhulka hoostiisa fadhiya nin geology Soomaaliya 62kii Singular shirkadii la dhihi jiray Mareykanka ee Soomaaliya surveyga ku haysay baa isagoo 18 jira iyo shaqo ka bilaabay kadibna markuu weynaaday muddo soo ula shaqeynayay Mareykan buu yimo wax ku bartay 60naadkii 70naadkiina dawladda Soomaaliya wasaaradda macdanta iyo biyaha ka shaqeeyay wuxuu igu yiri 62 togaga hakala waa weynaadaan qaarkood heer webi bay gaarsiisan yihiin yaa Soomaaliya hoos mara buu yiri 62 oo kulligood badda ku shumaan waxaanu maqalaa abaara dhacay idinka qudhiino lacaga soo dira la idin dhahaa war degmooyinkii abaara ku dhacay war Soomaalidii waa dhiban yihiin yani nicmadaas iyada ah ma wayana hayn fa kafarat bi an'amillah nicmadii hadaad ka shaqeysan weyday xataa macnaheedu waxa weeye adoo ku kufriya nabiga kaleey salaatu salaam nin baa u yimid
xadiis la wada yaqaan uu tuugsaday nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ma uusan siin maca daalika isagoo sakada iyo sadaqada nagu dhiirigelin jiray oo ku degdegana dhihi jiray ninkii tuugsaday waxa ma uusan siin wuxuu yidhi guriga maxaa ku yaal wuu sheegay faas iyo gogol iyo go' iyo ibriiq waxbuu sheegay wuxuu yidhi waxaad yeeshaa waxaa intaa qaadid suuqa gee iibi markaad faas kuma jirin markaad iibisid faas soo iibsuu yidhi duurka gal qoryo soo gur soo xamaal suuqa keen iibi 7 beri kadib isukaayo keen 7 beri kadib buu u yimid ninkii nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo lacag wata go-iyana iibsaday dib buu iibsaday ibriiqi dib buu iibsaday tugsan maayo nin raga weeye oo soo shaqaystay lacag buu wataa maasha allah horadoo sadaqa bixi weeye marka muslimka kaalmay sidaa darteed 7 beri waxaa la yidhaahdaa waa kooras qofka saboolka oo faqriga kaga bixi karo waa 7 days macallinkii aadamiga yaa culumtaas ka tegay 7 days qofku xaq uma leh dabadeed inuu tugsado soomaalida saboolka ah nicmadaas bay dul fadhiyaan ay ka qatan yihiin ninaan saaxiibanahaa nin soo wacay waa 2 sano ka hor wuxuu yidhi adeer qaaraan baan kaa rabaa wuxuu ku yidhi adeer ma xasuusataa markii isugu kaaya dambaysay aniyo adiga haa buu yidhi goormay ahayd 1970 waxaan ahaa ma xasuusataa haa adoo ardaya dugsare ka baxay baad bangiga shaqo ka bilowday waxaad i tiri ma xasuusataa haa qaaraan baan kaa rabay haddana qaaraan baad iga rabtaa haa oo muxuu yahay abaar dalkii ka dhacday waagaasna abaar baa jirta wuxuu ku yidhi adeer dadka 40 sano noloshoodii awood u yeelan waayey inay bedelaan ha baaba'aana iga dhaaf inay noolaadaan xaqba uma laha 40 sano ya nolol instagnation iska soo taagan isagii baan canaantay odayga waa ka gardaran tahay baan maxaan uga gardaray ninkii noloshooda wax ka bedeli lahaa waa adigay wax ku bareen adaa maanta waxaad fahmaysaa noloshaas in wax laga bedelo in loo baahan yahay maaha marka isaga inaad ciqaabto aad eedii adiga aad lahayd aad dusha ka saadhay biyihii intaasaan kaga baxaynaa waa mawduuc aad u dheer biyaha Soomaaliya aad u xiiso badan dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo inay bartaan aqoonta biyaha si ay uga faa'iideeyaan mujtamacooda waxaanu u tegaynaa haddana hantida afaraad cimilada okay cimilo ma hantiba waanu fiirinaynaa Soomaaliya oo satellite-ka laga sawiray cimilo inay hanti tahay in kale aanu eegaynaa hormeeda cimiladii webigii waa kan waa webigii Shabeelle webiga markuu mar waa curdan baa la dhahaa marna waa dhalinyaro marna waa waayeel biyaha webiga markuu curdanka yahay waa markuu ka soo baxayo qararka biyaha iyagoo yar bay meelo badan ka imanayaan lagama faa'iideysan karo markuu dhalinyarada yahayna waa markuu isku darsoomo xoog bay u socdaan iyana lagama faa'iideysan karo markuu waayeelka noqdo waa markuu dhulka siman u soo baxo wuu laalaabtaa si caajisa buu u socdaa markaas waa laga faa'iideysan karaa annaga biyihii waxay noo yimaadeen iyagoo waayeela waa qof afka raashin loo gelinayo Ethiopia waxay soo mareen iyagoo curdana iyo iyagoo dhalinyar oo xawli ku socda dhulka Soomaalidu ay degaan waxay yimaadeen iyagoo waayeela bal biyaha siga faa'iideystay kuleeyay ka faa'iideysan meena xabad baanu soo haysanaa gobolada qaar biyihii baa xuduud laga dhigtay dabiiciga reehbelna xagee degeen reehbelna xag hatraawo noo sheekeynay wuxuu yiri nicmadii ilaahay siiyay bay xuduud dabiiciga ka dhigeen
webiga jubbana waa kan alfiiri dhulka cagaaran waa cagaar iska soo baxay ya allahu akbar ismaan yuusuf keenadiid baa wuxuu yidhi gabay qurux badan oo dhulka soomaalida kaga hadlayo nin abwaan oo wuxuu filosofa ilaahay jannada raxmaha ka waraabsho wuxuu yidhi allihii dunida uumaa ku furay duul walbaba meele deegaankuu u kala soocay iyo dowyaday mariye dhulkaa dabacsan yaa niman waliba docun ka yaaliin soomaalina looguma daraan deeqda ee bahaye wax dadkeedu joogaa arlada mid ugu dooroone dal wanaagsan inay leeyihiin looma diidanayo webiyada dareeriyo biyaha dixasharooraya durdur iyo waxay ka cabayaan dowda ceelasha dooxada iyo buurahana waxyaal doog iyo caleen dayrta iyo gugana roobku waa ugu da'ayay daraftii adeegtabana waa doog iyo caleene waana deeqay khayr kalena waa laga damcaya ilaahay dambigiisa ha dhaaf waana deeqay khayr kalena waa laga damcaya khayr kale waa macaadinta iyo khayraadkii dadkii hore ee aqoonta u lahayn khayraadka afaraad ama hantida afaraad waa cimilada waa ekolojiyadaas nagu hareeraysan hawadaas iyo kulaylkaas iyo Soomaaliya marka cimiladeeda si aanu u fahanno cimilada adduunka baanu isla eegaynaa haddaanu hoos u goloobkii adduunka waa kan hemispheres goloobkii waa kan qoraxda maadaama aan niro Soomaaliya khadda waxaa mara dhulbaraha qoraxda shucaaceeda dhulbaraha toos buu ugu soo dhacaya intaas waa fahansanahay Soomaa laakiin qoraxdii waa tan toos dhexdu ku aadan yahay qoraxdii markay inta taagan tahay labada cirif kulaylka si dadban buu ugu dhacaya xagal buu abuuraya ya laakiin dhexda waa 90 degree sida darteed dhexda u kulul maadaama uu kulul yahay kulaylka caadadiisa waxa weeye thermodynamic xeerkii la dhihi jiray wuxuu ka guuraa meeshuu ku badan yahay wuxuu u guuraa meeshuu u yar yahay biyihii badweynta Atlantic iyo Pacific iyo Indian Oceanka biyihii waa karkarayaan markay karkaraan kulaylka ugu badan dhexdu ku dhacaya waa kaasa meesha guduudan aadka u guduudan way equatorial kow biyihii markay karkaraan qaaci kor buu u baxaya taa macnaheedana waxa weeye cadaadiska hoose yaa badan cadaadiska koraa fudud meesha cadaadiska ku yar yahay bay aadayaan kor markay tagaan biyihii kor qabow baa jira cadaadiskii baa badanaya marka laakiin hoos uma soo noqon karaan saqafkii kor oo ozonka ahaa bay ku yaacayaan saasay u yaacayaan xagee bay aadayaan ila kuwii hoosaa soo riixaya dib haddaan u noqonno waa kana convergent winds meesha dhexe labada khadda tropicalka iyo subtropicalka khadda ka hooseysa iyo khadda ka koreysa inta u dhaxaysa baa waxa la dhahaa convergence zone ka kulul baa waxa ka baxaya biyihii kor bay aadayaan saqafkii baa celinaya kanoo kala aha dusha ku yaacayaan cirifyadii bay kala aadayaan daruuraha asaas celina cirifyadu markay aadaan cirifka kore iyo cirifka hoose waa soo degayaan qaaci wuu soo degaya markuu soo dego waxa labada cirif qabowga ziyaadada ka dhigay iyo wada daruuraha ah waxa weeye adduunkii baa ku neefsanay hawadii baa saa u baxaysa markay soo degaan haddana waa soo noqonayaan oo waxay soo aadayaan meeshii cimiladu ku fududeed qabowgii baa soo riixaya markay kuleelkii yimaadaan haddana kulkii baa kor u qaadaya
معناها ساسي وصعنية انت سوا فهني هدانو انت فهني الصومالية مركا حقيبي كغتا الله وحاس وريغيا convergence gaas سفير هيموسفير ونص كا كوره خدي إكواتوريالك وكاسا خداس دوشيدا bay wax ka kacayaan waxna kor bay aadayaan hawadii waxna hoos bay aadayaan hadhowti bay soo laabanayaan dabaylahan monsoonka markay koonfur ka yimaadaanna oo ay soo laabtaan waxay xambaarsan yihiin badweynta Hindiya bay waxay soo qaadayaan daruuraheedii waa markay roobabka noo daan markay kor ka yimaadaanna imaatinka marka waxa ka horeeya آيات القرآن واحد جرت هيسا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان لبا بري قرحك الصبح يا لبا قرح الدع باجرة آيات إنه شكت زون كاس أنو تلمامني أو أنيري convergence زون باجورية متاجنا مرنا كربو أجورة marna hoos buu u guuraa kuleylkii iyo cimiladii baa dhulka loo qaybinaya cadaaladda ilaahiga bay ka mid tahay markuu kor u guuro waxa guuraya khadan equatorka ma khadu waa taaganta laakiin waxa guuraya qorraxdii baa dhinac u sikanaysa marka kuleylkii tooska ahaa ee dhexda ku dhacayay wax yar buu xaga u sikanaya marna wax yar buu dhanka kale oo koonfurta u sikana markuu kor aado convergence zone kor buu aadi koonfur Africa winter way waa haddo kale waqooyiga Yurubna ama gloobka waqooyigiisa summer way sababta kuleelkii baa ku soo sikaday convergence zone markuu hoos u sikadana koonfur Africa iyo Australia summer way kuleelkii baa dhankoodii u soo sikaday waqooyigana baraf way jaakada waaweyn baa la qabay koofiyada iyo ninkii Maxamed Soomaali ahaa duriyadiisii iyagu bash bay fadhiyaan dhexday fadhiyaan hadduu inta u durko kuleelkii bay ku jiraan hadduu inta u durko kuleelkii bay ku jiraan rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn guurguurkaas inay nicmo tahay aayadaas noo sheegaysa fa bi ay aalaa'i rabbikuma tukadibaan qolooyina xilliyaa la siiyay waa loo qaybiyay annagana xilli walbaana la siiyay sanadka dhan 4 xilli baan wax beeran karaa 3 bilood wadamo waxaa jira hal xilli wax beeran kara kuwa labay wax beeran karaan laba xillina waa ka qarxay wadamo waxaa jira aan waxba beeran karin marka dhul aan waxba lagu beeri karin waxba laguma beeri karo dalka Japan la dhaho oo wadamada adduunka u hodansana bal wadanka labaad ee Mareykanka ku xiga xagga hantida ah wax resource aan male waxa aan tirinayno oo Ilaahayna siiyay waxa maleeyo qarar bay ku nool yihiin wax resource ay leeyihiin ma jirto laakiin resource-ga wax ka qiimo badan bay leeyihiin walaqad karramna bani aadamki garaadaan siinay buu Ilaahay leeyahay garaada ilaahiya aayada quraanka ilaa qiyaam saaca kitaabka inoogu taa bayaan weeye bani aadamka lagu dhiirigelinayo han buu Ilaahay la rabaa aqliga isaga ahaa bay isticmaaleen karaamadii aadamiga ahaa bay isticmaaleen annana karaamadii iyo waxa la isugu kaayo daray hanti fakafarat bi an'amillah qaxootaan kana waydarka marka sidaas wuxuu u yahay hantida shanaad oo aanu leenahay waxa weeye xoolihii geel iyo ari iyo lo iyo ido iyo dameero iyo fardo intaba waanu leenahay iyagoo malaayiina markii fardaha iyo dameeraha iyo baqlaha laga reebo waayo annaga dhaqan weyn malaayiin waa ahaan jireen horteennii bay ku baabeen
والقف جورجي سي وحيل شاتجا يسرائيل كي معويست الله هو جورجا كويال واتقان وانو دغنا وانو استرارينا ميل بان دغنا أسبوع دم بوابهنا واقشنا هنتيدا وواح جورجيني يال أوكله وواحنا لنا هرتني بيكوبا بين مركزان كقاونا وأنا شاركيسي يا معويستيسي يا وحيسي كقاون وسوق قاون سوق اللوينك Soomaaliya tirakoobkii 5 hay-adihii dalka jooga ee qiyaaseen xoolaha ay leedahay waxa weeye 8 milyan oo geel ah 5 milyan oo lo' ah 18 milyan oo ida ah 24 milyan oo ari ah riyo mas'ari واي اوكي afkeena afafka adduunka oo hodan san buu kamid yahay afkeena afafka adduunka ugu da'da weyn buu kamid yahay ma aha wax aan iska mala awaalay waa wax factiya dadka wax baara ay soo ogaadeen afkii faraacinada ahaa afka haray afkeena ka jira sida darteed inaanu isku leeyno ma hayn lahjado ee waxay ahayd inaanu isku qabsano waayo waxana xiriirinayay buu kookay farkalihi fool ma dhaqdo berbera laga leeyahay hargeysa laga leeyahay gaarisa laga leeyahay kismaayaa laga leeyahay xamar baa farkalihi fool ma dhaqdo ummad dhamaanteed maahmaahdoodii ay mid tahay oo suugaantoodii ay mid tahay oo dhaqankoodii uu mid yahay oo xataa waxa dhibaya uu mid yahay baastaan wada cunaa bariis baan wada cunaa haddii alla ku ron yahay xataa magacyadan afka carabiga ah oo aanu leenahay xilli waxaa jiray aan la wada baxnay xilli waxaa jiray cabdiyo aanu la bixi jirnay xilli waxaa jiray abtirsiyaha Soomaalida markaad fiirisay nabiyadii kulli nabiya fashion bay hadda waxa socota asxaabtii wiilasha Xamzaan wada bixinaa gabdhaha Xafsaan wada ummad waxaan wada guuraysa laakiin doontii baan ku heshin laana doontii waa la wada saaray laakiin waa lagu heshin laaya xoolaha iyaga ah hay'adda Swedish baa tirakoob ka samaysay qoraal aad iyo aad enjoyment ah qofka Soomaaliga ku raaxaysanayo bay ka diyaariyeen waxay dhaheen dadkan tiradooda iyo xoolaha ay haystaan statistic hal isu dheelitiro hal isu هل مليون قيس ليهي معناها أبي هاي يتدبع عياله هل مليون قيس واحد وقي بساس 8 مليون وقيله غير كي مقو هليا هل كي قيس 8 قيله كسو هذايا 8 هلاد وقيله mid ratay aan ka dhigno si maaragtay ko reerkii inuu guuruur raba arigi ama riyihi 24 milyan weeyaan qoyskii maxaa ku soo aadaya 24 neef oo ariga ku soo aadaya idihi waxaanu niri 18 milyan meeqa ida ku soo aadaya يا 18 مليون كان قيلي قروح ديس ما شاء الله أقول راح يسنن هذه إذا هنا واحد نري أفر يا 18 إذا باكو هذا يا قيسكي هذا المقعة عبد العزيز قيسكي سي أفر 18 إذا كسو عادي نقرأ له إكسامبل بانكوسو قادنا ما شاء الله ما شاء الله والله بضيل باي عدالة وي عدالة بالرب لودينا waxaanu niri 5 milyan عبد العزيز 5 sac
oo lo ah meequu marka halkaa ku helay dameerihii iyo fardihii iyo idihii baqlihii dib baan u dhiganaynaa ama maadaama ay yaraadeen waxba iyaga xisaabin mayno qoyskii cabdicasiis waxay heleen 8 neef oo geela 5 lo ah 4 iyo 8 iyo 10 oo ida ah 4 iyo 20 oo ariya riyaa dhulkaad aragteenna oo cagaarka ahaa webigu marayay waa ku noolyahay qoyska cabdicasiis ma la dhihi karaa waa baahan yihiin ma la dhihi karaa waa qaxooti ma la dhihi karaa waxbuu maamulan la'yahay hayhaat waxbuu maamulan la'yahay xataa hadduusan wax maamulin dee xoolihii caws bay haystaan ilmihii markay baahoodaanna waa lisanaya geedkaasuu hoos hurdaa waa nin isla weyn muxuu yidhi ninkii 2 geel jiroo geed hoos hurdaa waxay arkeen dayuurad socota dhururuqlaysay buu yidhi walle adaa dhoodi dhexe dhul waa kugu cuni gabalkii baa sii dhici rabay wuxuu jeclaystay inay iska soo hoyato caano geeluu siiyo marka kow hantidii shanaad oo xoolaha ahaana intaasaan kaga baxaynaa iska badaa maaragtay markii aan caqli adeegsanno oo haragoodii aan iibsanno oo kaadidoodii aan iibsanno wallaahi kaadida xoolaha hanti weeye lacag wey dawooyin baa laga sameeya nin baa wuxuu yidhi Swedisha waxaan aad u rabi lahaa inaan markab ariga qaada arigiina oo khaliijka gaarsiiya aan yeesho waxa ceeb idinku abuu yiri in la idin dhaho dawladaha khaliijka idin dhahaan arigiinii baan blokaad ku sameyn wuxuu yiri iyaga idinkay ahayd inaad blokaad ku sameeysaa waa baahan yihiin maxay haystaan buu yiri saxaray degan waa runtiis batrool baa la haystaa okay cab batroolka anna neefkayga ariga yaa cunaya hadiyaas blokaad waa aqli xumadeena waxa blokaadkana lagu sameeyay wuxuu yiri inta aan sii wadana kaadidaas iyo saxaradaas waan ururin lahaa buu yiri waa iibsanaya waa runtiis farmakolojistayaasha waxyaabaha daawada laga sameeyo yay ka mid tahay kaadida la canaasir kiimika ku jira aadan meel kale ka helay si sahla u helay neefkan iska kaadinaya cabaar walba weelun baad hoos dhiganaysaa oo warshad ku socota huwa alladhi sakhara lakum ma fi al-ardi jamii'an bi ilahi jamii'an xoolihiina intaasaanu kaga baxaynaa ma sha Allah akan gabayadii geel ayaa wax ka xasuusta waagaanu calanka qaadanay nin baa geel maandeeqa u bixiyay calankeena ninkaan caanu cabaya Allah idinka isaga waa kala nasiib fiicanti afta ma sha Allah ma sha Allah kana sii arigi idihi Somali goat Somali sheep Somali cow yeah yeah يا ليت قروح بدنان لهيد لكن ده يا agriculture beeraha haddaanu u imaano adeerayaal beeruhu dhulkeena Masar baan cabaar joogay dhulka ay ku nool yihiin 4% bay adeegsan karaan 96% dhulkooda ma isticmaali karaan saxarago ayaan darrida dadka haysato 96% dhulkooda saxraaw degaan iyo beero iyo warshado meel laga dhiso meel guryo laga dhiso laamiyo kulli waa 4% dhulkii ay ku noolaayeen annaguna 80% dhulkeena waa dhul munaasib ah isticmaal 80%
أولي بيرو مناسبة بيه هنا واصل شغلنا ومتوفر ماله اللي يسلها وأجوبي يريهن وأجوبي يريهن ماله اللي يسلها يجا أجوبي بعض وبيداس ستلاجد الشجان ودول كهاسمرة لبي اللي حدن كدردر ودول كهاسمرة يبدن كود وقبل داس أنا وبيجو كول دول كأود داس له كلايمت كاسنا له أفر تحلي وحلاقة بيران كرو وحاودر وحكستنا ولا بيري كرا وحكسته وعد كنتي بعد بيران كرا يعني يدي موسكي عن به عنونه عن الناسكي ببايجي بسشي تونادي لينتي بوساسو مركو بربر كدعي سوميش أجوبية يرماها مركو بربر كدعي أفر كونو قف باكون نورا ما أنت 500,000 وكبدين يدك كونو خضارته يعنان قاركيد كونفور لقى مكان صور فلاشة وذا جامعة دا هرتي هذا بيكليا لغور شيء مركان تجوان يا عاوز كانوا ميل كلات ككنتين ما يده بيكليا كل شيء بق عاوز كوابح معناها دول كأنه أردن باوحي هي دول بيرع وحكستنا واكبحان أفرتح لنا وابحان beeraha marka intaasaan kaga baxayna qofkii inta loo sheego waa u yaabaya nin masriya waxaan ku yiri dhulkeena inta rabtid oo dhulaha baad qabsan kartaa ya sheekh maxaad ku hadlaysaa inta rabtid oo dhulaha yaa kaliya meel degan yihiin ka dheero meel xoolo la aroorinayo ay maraana isbaaraha ku noqon ka dheero dabadiha inta yaa duurka kugu iimaanaya qofna أنت ربتد بعض أبصن كذا ذاتك قاربا يابيا والله يابا سياب لو يابيا طبعا متر أو قبصدان 5 متر بيلاقيهن أو يبرتان 5 متر وأنت إلا يا عبد العزيز بل أدونك لا ودي مال دول wax ka soo baxayaan wadamada waqooyiga xilliga kulaylaha 3 bilood baa laga gaarsiiyaa iyadoo wali qabowgi jira dhulka la falaa waad aragteen abuurkii la sii sameeyaa 3 kulaylka jiro wixii soo go'i kara baa la gurtaa waliba item kasta ma waa maxduud itemada la beero bataati qamadi ya wadamo badan baa labada shay kaliya beerta wax kale u soo bixi maayo beerihiina intaasaan kaga baxaynaa shanaad buu ahaa ما يلحد بها تضبط وحنو فيرينينا او وكنا وايل انيمالز وهنتي ذا الصومالي دول leedahay bay kamid soo hanti ma siyaabo badan bay hanti ku tahay gurigeeni inaanu garan weyno hantidii aanu lahayn waa shaarkii Israa'iilkii guriga noo yiilo laakiin maxaan u baahanahay saan shaarku u xanaanaysano inaanu u xanaanayno markaan xanaaneyn weynay waa naga guureen in badan waxna waanu dilay waxna waa guureen laakiin mid walba raad baa ka haray mid walba raad waa ka jooga libaaxa hadda aad wuxuu ugu badan yahay koonfurtaas dhulka dhooblayda dhurwaaga waa uu ku wada fidsan yahay dalka dawacada sidoo kale shabeelka isagoo qudhiiso aad buu u yar isaga ugu yar yaxaaski iyo jeerti bahalladan tourist ahaan baa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa dawooyin baa laga sameeyaa de waa nooc abuurka ilaahay ka mid ah xataa in laga badbaadiyo inayan dabar go'in waa xil bani aadan ka saaran wey jeerti yaxaaski berigii iyo gorayadii dameerkii iyo loodan maxaa la yiraahdaa reksmaayoodka kaliya yaqaan logisi bay dhahaan ya gaalkacyo iyo hargeysa lagama yaqaan ya magacu ma laha hantida 7 taas bay ahayd hantida 8aad waa dhirta ma hantiba yes
waddanka Sweden la dhaho oo wadamada adduunka ugu hodansan kamida hantidiisa saddex wax bay ku dhisan tahay saddexda waxay ku dhisan tahay mid kamida dhirta way dhirtaas way dhirtaas ay jiraan alwaax bay ka sameeyaan alwaaxdaas waxna sidooda u dhoofiyaan waxna waa farsameeyaan qalab bay ka sameeyaan koonfurtaas hadda aad baa dhirta loo jaraa oo la dhoofiyaa iska dhaaf dadka ka ganacsadee dekadaha ay ka dhoofaan xamar iyo marka iyo kismaayo iyo kudhaa iyo baraawe iyo ay ka dhoofaan malaayiin cashuura ka soo gasha malaayiin waa dekadaha ay ka dhoofaan keliya wadamadaas dadku nolosha ay fahmeen waxay yeelaan geedka markay jaraan meeshii geed ay ka jaraan geed bay ku talaalaan waa daweeyaan cirbad bay ku mudaan garanti waqti go'an ya sanadkaas in la jaraayo isagii oo soo baxay oo taagan waa hanti laakiin annagu waxaanu cunno keliya naqaan waa cunaynaa dheriga wixii ku jiray ya dheriga iyo eberaan aakhirka xagxaganayna isku dilayna dhirta Soomaaliya ka baxda nin la yiraahdo Matt Schultz buu ka qoray laba volume oo waaweyn oo buuga ninka isaga wuxuu yiri muqaddimada wuxuu yiri Soomaaliya waxa ka baxa inta uu isagu soo ururiyay dadkii ka horeeyay wixii ay ururiyeen buu qaatay waxbuu ku daray 93 kiina uu ku lugayay Soomaaliya awrintu rartay 95 kiina uu ku lugayay وحلقان سلينين بيداتكو دراسات هي وحو سو أروريي كون يساقال جيد باكو يال لبدي ساقو بوغ لبا فولوما كون يساقال جيد أو سوالي كباح وحو يري تقريبا ترادي هذا ما حسوستو وكحو ماي لكن waxaa laga yaabaa muxaadaradii hore inay ku jirdhay tiro yani ma sheegi karo boqol inay ka badneed baan u badinaya geed oo Soomaaliya ka baxa oo adduunka meel kale aan ka bixin baa jiro meel kale aan ka bixin wuxuu yiri dhirta Soomaaliya ka baxda gabi ahaan ilaa 6,000 baa lagu qiyaasaya 6,000 oo jaad oo geeda baa lagu qiyaastaa in diraasa lagu sameeyo la barto aadamiga oo dhan bay faa'iido u tahay aadamiga oo dhan bay faa'iido u tahay waayo waxa dawo la sameeyaa dhirtaas laga sameeyaa wuxuu kaloo yiri Soomaalidu geedahaas oo dhan waa yaqaaniin reer miyiga taasaan la yaabay سيو استعمالنا وايا قانين بير أما إياga si toos u isticmaalaan ama si dadban oo guriyo iyo xargo iyo waxbay ka dhigtaan ama xoolahooday sistaan iyaga waa wada yaqaaniin buu laakiin anagu hadda ma naqaan qurac iyo qansax kaliyan ka naqaan geedihii Soomaaliya waxba kama naqaan dhirtuna saasay adeerayaal waxay ku tahay hanti qiimi badan oo Ilaahay uu inagu manaystay geed kan yaa yaqaan geedka ya geedka ya waa isku khilaafteen waa garan weyday ya haskul maxaa laga sameeyaa yaa yaqaan xargaha laga sameeyaa iyo dermaha iyo haskul wey ها ومدو يهي مياه افتين ما كان قابن توس ما كان نادر ما كان هوس حرقها لغا سمية واقي هوري سومالي دا اي دونيها استعمالي جرين جيد كاسواء وبدنا حرقي كسمي سنجرين waxa kale ay ka sameeysan jireen kabdo iyo dermooyin iyo wax lagu fariisto wax guriyaha lagu dhisto wax urta lagu rarto wixii hadda ma jiraan wixii waa ibr geedi caagag iyo waka
waxaana waa lagu dhayi jiray aqoontii baa guudhay farsamadii waa guudhay waayo caqligii baa guuray sibdaro waa hantidii dhaxalka ahayd oo dadkeennii hore waxbaase ka dambeeya dad weli gacanta ku haya waa jira dhirtana intaasaanu kaga baxaynaa waxaanu u tegaynaa baddii xeebtii dheereed baa ilaahay ina siiyey subxaanahu wa tacaala aanu soo aragnay 3,520 kilomitir xeebtaa iyada gaadiid ahaanna waanu isticmaali karaa oo dakhli inaba aan yarayn caadi ahayn buu dalka iyo dadka soo gelin karay meeyey badda waxay kaloo leedahay nafac baddeenna cajiiba baddeenna waxaa ku jira kayd ka mida kaydadka adduunka ee kalluunka annagu waxaanu naqaan doonyo yar intaanu wadanno inaan kalluunkan dusha sabeeyo keliya aan soo dabanno laakiin adduunka ganacsigiisa kalluunka aanu dabanno kuma jiro kalluunka badweynta hoos sabeeya weeye kalluunka laga ganacsada kalluunka isagaana waxaa ka ganacsan kara qof kow yaqaana labo awoodu leh inuu soo dabto saddex haysta suuq u geysto boolisiga adduunka waa suuqgeyn tan iyo waagii dadka la uumay wax isdhaafsigu xoog buu lahaa waayo noloshaa waxay ku dhisan tahay waxaanan hayn oo aada haysid baa jira waxa aada haysid hadday kaa badan yihiin dee uma baahni anoo u baahan baad leedahaye adna waxaasaad haysaayeese sidaa darteed baa dhaqdhaqaaqa ilbaxnimada noloshoo dhan waxay ku xiray dhaqdhaqaaq ganacsi maxaa sabab ka dhigay in kaydka adduunka aanu noqonno waxaa jira wax la yidhaahdo upwilling system dabiiciya ilaahay uumay xeerarka ilaahay ugu talagalay nolosha inay ku socoto upwillingku waxaa weeye dabayl biyihii riixaysa waa dabayshii hadda aan ka hadlayno kale biyihii bay riixaysaa markay riixdo biyihii see u socdaan biyihii dusha ahaa wey maaha biyihii oo dhan gidaar bay tegayaan meel gidaarah bay tegayaan aayaddii biyaha ka hadlaysayna oo iyadii noo sheegtay baduhu inay kala xirxiran yihiin baynahumaa barzakhu waa gidaar laakiin gidaar biyo-a wey maaha gidaar derbiya biyahan iyo biyo gidaaraa u dhexeeya baynahumaa barzakhun laa yabqiyaan isuma gudbi karaan biyihii si oo socdaan biyo kale u tegayaan dabayl baa riixaysa soo ma socon karaan maxay yeelayaan marka hoos bay soo aadayaan hoos bay u degayaan markay hoos u degaan weli dabayshii baa socoto biyihii dusha waa riixaya kuwii hoose weli ilaan gadaal baa laga cadaadinayaaye meeshii u sahlan bay soo aadayaan biyihii hoos fadhiyey bay soo kicinayaan markay soo kiciyaan hadda dabayshii waa tana maalan maxay u kaadiniyo dabayshii waa taa fallaartaa madow ma ujeedaa fallaartaa madow dabayshii wey derbi baa soo celiya buura maalan waa maxay derbi baa soo celiyay biyihii waa dhaqaaqeen kore ilaan dabayshii baa riixaysa dabayshii derbigii baa soo celiyay biyihii bay marka riixaysaa markay riixdo biyahan dhaqaaqay ee socday kuwaan kore oo sida aadka buluugga u ah buluug af soomaali maaha yaa af soomaali ku yaqaan buluug midabka buluug af soomaali maaha baymadow baa la lahaa soomaaliga baymadow afkeennii xataa waa dhan kasta waa ka xaalufnay dhaqankii ka xaalufnay afkii ka xaalufnay dhulkii ka xaalufnay midabka baymadowga ah
ee kore biyihiisii waa soconaya markay xagga gaaraan gidaar kala soo celinaya hoos bay ka soo laabanayaan marka waa soo noqdeen waa kuwa biyihii oo soo laabtay systemkaas marka aan idin sharxay saddex meel baa adduunka dhan kale meel waxa weeye galbeedka Mareykanka meelaha ay ka kalluumaystaan Alaska iyo inta ka hooseysa California iyo Upwelling bay leedahay meelna waxa weeye dawladahan Far East Upwelling bay leedahay meelna waa Indian Ocean gobol Soomaaliya xeebteedaas Upwellingku marka wuxuu u faa'iideeyaa kalluunka hoos dhirtii baa ka baxday sooma dhirta baxday miraheedii iyo macaadintii dhulka tiilay iyo wixii nafaqa ahaa ee dhulka yiilay salka yiil bay dabayshu kor u soo qaadaysaa markay kor u soo qaado malaayigii halkan ku noolaa barwaaqo helaya roob baa u da'ay Soomaalida dad yar baa kalluumaysta waxay dhahan badii xanfar bay leedahay waa fiican tahay in la galo xanfarka waxa weeye barwaaqadii hostil baa kor uga imaanaysa kalluunka marka wuxuu isu dhalaa sidii digaagii buu isu dhalaa Upwellingkaas bay badeenu leedahay labadan kale marka ummadahoodii waa ummado ilbaxay oo qalab teknolojiya samaystay oo aad uga faa'iideystay kalluunkii meesha ku tarmay laakiin Maxamed Soomaali duriyadiisii wali geel bay ag fadhiyaan waa isku caayaan in bad la dhacayo in la kalluumaysto iyo yaa caybay ba agtooda ka tahay kalluunkii marka wuxuu helay nabad uu ku tarmo sidaa darteed baa waxay u noqotay meel kamid ah meelaha reservaha u ah kalluunka adduunka 25 bishii January 2009 journalka Al-Ahram waa hayay maqaalka wuxuu soo qoray say burcadbadeeda Soomaaliya u bilaabatay shirkadaha tuunada ee caalamiga waxay khasaareen 6 milyaar oo dollar 6 milyaar muddo sanada iyo khasaare 6 milyaar waxa khasaaraya nin tuuga oo waxadayay kiilaha markuu si xalaal uga shaqeysto gurigiisii ka warrama ya sanadkii 6 milyaar ma heli kara ka badan buu heli kara ya 6 milyaar oo dollar bay khasaareen buu yiri say u bilaabatay burcadbadeedii Soomaaliya hantidaasina waa hantida 8aad 9aad bay ahayd badda hantida 10aad معادن Soomaaliya waa dhul macaadin mineral belts baa la yiraahdaa mooski waa ka macaadinta Soomaaliya waxa ku fiican qof kasta oo naga mid ah inuu isaga baaro raadiyo xiiseeyo wax ka yaabiya baad u tagaysaa macaadinta iyadu waxay u kala baxdaa minerals iyo non minerals minerals iyo non minerals metals iyo non metal waa macaadin bira iyo non metal macaadin aan birahayn naagruusha baa 60kii markaan gobonimada qaadanay ilaa iyo 65kii geology bay ahayd United Nations ka socotay waxay ku qaadatay survey inay ku samayso geology-ga Soomaaliya muddo 5 sano ah 60kii ilaa 65kii buug waxay qortay la dhaho Somaliskaya Republica dawladda Soomaaliyeed buugga waan arkay waan raadiyay meel library waliba bakhaar soo ku jira markay ka sheekaysay macaadinta waxaan la yaabay bay tiri caadi maaha dhul dhowr mitira inaad macaadin ay iyadu markaa magacaawdeen fahmi waayay macdanta dhowr mitir square inaad ka heshid oo waliba ay ku badan yihiin laakiin nasiib darrada haysata dadkaas
curdanka ee hadda dhashay waxa weeye laba sabab iyaga oo aanan aqoon u lahayn waxa ay kor fadhiyaan iyo iyaga oo sabool ah aan waxba helin qofka hadduu lacag haysto at least mid baad u yeeranaysaa waryaa ii shaqay baad leedahay ninkii aqoonta lahayo geologyga PhD-ga ku qaatay boy buu ku noqonayaa markaad waxaysatid laakiin haddaadan maya at least ku kaloo ku ilaaliyaad ijaaranaysa lacagtu waa shaqaysaa moogtaa mar kasta wahiya lisaanu ninkii carabka baryay wuxuu yidhi ina daraahima fi lamaakini kulliha tasdu rijaala mahaabatan wa jamaala wahiya lisaanu liman araada fasaaxatan wahiya silaaxu liman araada qitaala iyadaa kuu hadlaysa iyadaa wax kuu ilaalinaysa kow hantida aan ahayn birta waxaan usoo hormariyay cusbo ma hantiba kitaabkii igu horreeyey oo aan ka arko 96 bay ahayd hantida Soomaalida maguurtada anoo baarbaaraya wuxuu yiri cusbu kow ka dhigay walaal cusbo yaro inta lagu darsaday arki jiray cusbo ma hantiba hanti ummadeed يعني ما la soo qaadi karaa iyadoo hanti umadeed laga hadlayo cusbo waa la soo qaadi karaayo macluumaadkii ugu dambeeyay oo aan cusbada Soomaaliya ka helay waxa weeye sanadkii 1926 dawladaha China Russia Talyaaniga iyo Japan waxay ka qaadan jireen cusbada Soomaaliya magaalada Xafuun waxaa ka dhoofi jiray bil walba 6 markab oo waaweyn oo buuxa cusbo kaliya waxaa ka shaqeyn jiray 16,000 oo qof oo shaqaala waxay ahayd qaaradda Africa institution loo kalaho oo shaqo loo aado tii u weyneed 1926 magaaladii iyada ahayd maanta hal cunug oo dugsi aada iskuul aada malaha كورا هل عنق سكول أكلها مرة ورمحا إذن كل داعي عرورتي سكول وديدي معلم بانانا لو بقولوا $1 وبهن يا معلم جاد ما قاد كون تام بشي لحية صدم كونه $1 بشي بشي لحية صدم كونه $1 لو بقولوا $1 هل معلم لسي عرورته وبرنا ما هي ومداس حق إله بيكاga xugmantahay inay baabacdo hadii ayan isdaba qaba وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وإذا بعد قالا جغرافي موقع الجغرافي بعد قالا قيلي بهلك داقايا كلونكي بهلك كتر ماي سبحان الله غورغا هورتيسا yaanyada islaanta ay daadisay lama cuni jirin waagi hadda waa cunaa sababta loo cuni jirin maxay ahayd miraha gabdhaha Soomaalida waa daadin jireen waagi xagga la joogo Soomaaliya inta la mira qolofta kaliya lagu ridi jiray markaasay bug soo bixi jirtay يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كفرت إلهكم أين كفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف قاجو يعبسي ينلبس وقدقنا يبو إلهي ليه سوطا النعمات دي آنو سيني يكو كفريا بما كانوا بسبب ما كانوا يصنعون عصبو وتاسا فداسا إيمانيسا حافون مركان تغني وحي نتصيان ميل هرديا الله دهو بوره اسكعد وحكا لك مربتو جوان كوغر كليه وحكا لك مربتو بوره waxaanu aragnay aqal taqriiban 4 ilaa 6 dabaqa oo weyn talyaaniga dhisay waagaas waa meeshii uu ka maamulay hawsh iyo rukumadii badda ku taxan oo belt ba markabka geynay jawaanada cusbada mishin guurayo socda belta marka birihiyo waaweyn oo madmadow ba badda ku taxan ilaa iyo meeshii markabka uu imaanay cusbada marka ficlan hanti weeyo umadu leedahay Soomaali si gaar ah loogu manaysto
كوارتز maxay tahay waa ciid weeye ciidda iyada buug baan waxaan ka akhriyay dhalooyinka laga sameeyaa waliba waa ciidda u qaalisan ee dhalo laga sameeyo magaalada la dhaho ceelbuur ilaa xamar bay daadsan tahay ciiddaas waa meeshay ugu badan tahay oo halkaa buug baan wallaahi waxaan ka akhriyay haddii ciidda kaliya ay Soomaalida ka faa'iideystaan waxay awoodaan dawladaha warshadaha leh inay la level noqdaan waa ciid جبسمka waxa weeye shaminta cad احتياطي عالمي World Reserve Soomaaliya laba meel baa buuraha Jarmalka ku yaal iyo buuraha waqooyiga Soomaaliya ku yaal dalka yarka aanu aragnay geographiga adduunka meeshuu kaga yaal imisa wax buu haysta oo hantidiisa uu leeyahay oo reserve World Reserve adduunka dhan reservihiisa baashana kamida jibsumka shaminta ahaana waa loo isticmaalaa markii guriga aad rabtid meel aadan mar dambe ranjiyeynay ranji cad kaliya aad u rabtaa waa lagu isticmaalaa caafimaadkana aad baa loo isticmaalaa inuu ka gudubno mitaalku aad buu u fara badan yahay dhowr shay kaliya aan ka soo qaaday mitaalka birtaasa u horeysa bir iron dhagaxa weeye bir waxa laga sameeyay isu sheegimeeno iyo qiimaha ay leedahay suuratul hadiid buu ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu sheegay inay manaafic fara badan leedahay wax kasto khayrana waa lagu qabsadaa wax kasto sharana waa lagu faraa bir badan baa Soomaaliya ku jira laakiin in la soo baxo la dhalaaliyo laga faa'iideysto waqti badan bay qaadanaysaa kool waa dhuxul dhagax dalka Soomaaliya intuu 70aadkii ruushkaanu xiriir la leh dawladahan marka baaluqa ee qaan gaaray markay kula saaxiibaan waad isqaadataan kaalmada ay ku siinayaan waxa kaloo jira mashaariic mustaqbaliya oo long sigte ugu talagalaan oo ay la sugtaan inaad isa sii qaadataan heer aad isla gaadhaan mashaariicda iyada waxa kamid ahaa oo san ruushka noo sheegin laakiin ilaa hadda mashruucaas uu yaala zaylac tariin ka soo bilowda oo Kismaayo ku dhamaada oo xeebta mara qorshaha damacsanaa qorshaha isaga ah birtii lagu sameyn lahaa buuraha Soomaaliya ka soo saari lahaa shidaalkii uu ku socon lahaa tariinkana dhuxul dhagaxan weeye buuraha Soomaaliya ka soo saari lahaa kaliya rag khubaru noo soo diri lahaa wixii shaqeyn lahaana annaga halka qoda birta shiida birta haga wiishkaas ku qaad waa un aqligaas buu nagu xasdayaa oo nagu haysta aqligii waan leenahay laakiin weynaan isticmaalay jaad baan ku cunaa fadhi ku dirir baan ku cunaa aqligii hadii alla kuuran yahay waxun fitan iyo qurana baan maaragtay Allah naga badbaadiye dhuxul dhagaxaas marka maraakiibtii Talyaaniga aad buu uga qodan jiray goboladaas bariga buuraha ku yaal meeluhu ka qodan jiray iyadoo ceegaagta baad arkaysaa yani aw awi ila rukn shadid buu rasuulkii yiri alayhi salaatu wasalaam nabi luud buu ahaa dhirtii bay gubayaan oo jarayaan oo dhuxul ahaan u isticmaalayaan iyadoo dhuxushii halka iska ceegaagto taa dhirta iyo tana u fiican iyaga xataa tan baa u fiican waa dhuxul dhagaxa waa shidaysa wixii bay ku karkarin markaad karkarsatid baabi'imayso waa yaraanaysa waa dansanaysa waa ku taala buuro dhan baa iska buuxa lagu hambaasi maayo tiin birtaana tiin baa lahaa
وبر خفيفة waxaa laga sameeyaa koombooyinka kalluunka lagu gasacadayo yaa laga sameeyaa iyo biraha khafiifka ee malgacdaha iyo birta iyo dusuuda waxa lagu karkariyo bir khafiifa way tiin baa lahaa birta iyadana aad iyo aad bay buuraha Soomaaliya uga buuxdaa birihiina intaasaan kaga baxaynaa hantidii tobanaad bay ahayd oo macaadinta ahaa waa fara badan yihiin waxa ku jira aluminum baa ku jira uranium baa ku jira waxa ku jira dhulka iyaga petrol waxa ku jira gas waxa ku jira timetable ka periodic hadaad soo qaadatid oo inta birta aad fiirisid intiisa badan Soomaaliya waa laga helaya iyadoo waliba mutawafira dahab baa ku jira faraacinadii waxay dhihi jireen dhulkan dhulkii malabka iyo caanaha dhulkii miraha iyo ugaadha dhulkii uduga iyo beeyada markii dambe waxay u bixiyaan dhulkii ilaahiyadii khuraafiga ay aaminsanaayeen bay waxay ilaahiyadaas baa si special dhulkan u leh oraah baa jirta aan buu ka akhriyay faraacinadaas waxay dhihi jireen allow yaa nasiib leh oo qof Soomaaliya la saaxiiba magaca Soomaali ma jirin waagaas Puntland baa deegaanka dhalna dhihi jiray qof reer Puntland yaa nasiib leh oo la saaxiiba laakiin dadkii Soomaalida ahaa maanta waa wada qaxooti waa wada sabool waa wada maaragtay dad magac liita ah dad la xaqiro dad markii la arko burcad badeed iyo haddii alla kuuron yahay foojaristayaal iyo lagu tuhmo dadka hantida leh way wajigan marka laynoo sameeynayo adeerayaal malihin Soomaali burcad badeed maaha dad argixisa maaha dad nabadda jecel baa weligood lagu yaqaan magacoodana laga fahmaya dad aqli badan baa weligood lagu yaqaan dad cawaana maahayn Soomaalida dad cawaana berbera waxa ingiriiski markuu damcay inuu dego iga iibiyo buu yiri magaaladan berbera meeqaan ka siinaa baa maxaad nasiinaysaa odayaashii waa isu yimaadeen reer berbera goobu fidiyay qadaadiic iyo dahab iyo waxba ku guray wax fara badan buu u tuuray odayga intuu istaago iyo intuu dacal qabsaday iyo hurgufay seer berbera wax go lagu qaado ka weyn berbera wax go lagu qaado ka weyn maantana $50 baa la siisanaya $50 baa la siisanaya macna aqligii baa guuray wajiga runta aan leenahay ninka awoowaha ah hadalkiisii dalka iyaga ka weyn wax la iibiyo dastuurka laynoo dhigaya ka weyn wax shan nin oo ajnabi intay laabka gasho noo soo xarxariqaan oo noo yeeriyaan wuxuu yiri Omar markuu dhimanayay nafta ka dhacaysa yaa xasuusta hadalku ku nafbaxay ninka hadalku ku nafbaxay wuxuu ahaa ilaahay jannah raxmaha siiyo dalkaygana wax shan loo qaybiyo ka yar dadkaygana wax la rarto ka tabar yar dadkaygana wax la rarto oo la gumaysto ka tabar yar marka walaalayaal sidii uu yiri Cismaan Yuusuf waa nadeeqay khayr kalena waa laga damcayaa dalkaas waa nadeeqay khayr fara badanna waanu ka damcaynaa laabta ku haya arintaas intaasaan uga baxay